olole ballaaran oo qashinka loogu aruurinayay afarta xaafadood ee degmada Buurtinle iyo suuqyada kala duwan ee degmadaasi ayaa waxaa si wadajir ah u fulinayay maamulka degmada ururada haweenka bahda sportska iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmadaasi. ugu horeyntii waxaa goobta nadaafadda laga sameynayay waxaa hadal ka jeediyay qaar ka mid ah golaha deegaanka degmada bahda sportska iyo ururada haweenka. waxaanu astaynaynaa hadii alla yiraahdo maalin la yiraahdo maalinta nadaafadda degmada Buurtinle oo qof walba ka soo qayb galo maanta waa furitaan laakiin hadii alla idmo waxay noqonaysaa joogtay noqonaysaa waxaanu rabnaa inaanu gaaro qof kasta oo reer Buurtinle ah caagadii uu biyaha ka cabay inuu recycle bin ku rido ama fuusada qashinka uu ku dhex rido muwaadinimadu ay tahay waxaanu hiigsanaynaa anagu marka maanta hadii alla idmo oo sideedaba hadii aanu golo deegaan waxaanu hiigsanaynaa anagoo isku duuban cuqaasha nabadoonnada waxgaradka kulli inay degmada Buurtinle aanu u hogaamino wajahad cusub aanu u hogaamino sidaanu ku gaar lahayn hiigsi iyo himilo fog. waad arkaysaan maantayto ololaha ballaaran ee nadaafadeed oo laga hirgeliyay degmada Buurtinle. degmada Buurtinle waligeeda caan waxay ku ahayd isku tashiga iyo xooda qabsiga. waad arkaysaan laamiga quruxda badan dawladda shisheeye iyo dawladda sokeeye midna inooma dhisinin wax yar oo jilbaja ina ku iftiimisay maahane inta kale reer Buurtinle leeyihiin maanta ka cirif laamiga quruxda badnaa waad arkaysaan waxa weey waa la seexan karaa suuqyadeeni waa la seexan karaa xaafadaheeni waa la seexan karaa inta inoo hadhayna waxa la rabaa wada jirina uga qayb qaadano ololaha nadaafadda ka sports ahaan waana markii ugu horeeyay waxa weeye maamulka degmadu intay u yimaadaan ururada ay dhahaan waxa weeye barnaamijkaas ka qayb qaata taas dhiirigelin bay noo tahay insha Allah ma noqon doonto markii ugu horeysay mar walbana diyaar waxaan u nahay in aanu ka qayb qaadano barnaamijyada degmada ka socda ay ugu horeeyaan ololaha nadaafadda. waxaa kaloo aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhalinyarada sportska sharafta leh oo waxa weeye soo xilqaamay soo kalahay kana qayb qaatay waxaana leeyahay insha Allah mar walba waxa diyaar u ahaataan horumarinta iyo nadaafadda degmada. dhinaca kale waxaa madasha ka hadlay xogayaha dowladda hoose ee degmada Buurtinle Jaamac Cabdiraxmaan Abshir isagoona sheegay in degmada Buurtinle ay noqonayso magaalooyinka ugu bilicda qurxoon Soomaaliya. meel aan nadaafad lahayn waa meel iimaanka barkiis ka maqan yahay. waxaad ogtihiin adduunku maanta wuxuu ku faanaa bilicda meel walba ay leedahay ayroborada kuwa ugu bilic qurux badan wadooyinka kuwa ugu bilic qurux badan magaalooyinka kuwa ugu qurux badan hadafkayaga iyo hiigsigayaga degmada Buurtinle inaan gaarsiino uu yahay wuxuu ahaa oo aanu ku ballanay Buurtinle inay noqoto to be clean and green Buurtinle inay noqoto mid nadiif ah oo haddana ah mid green. waxaanu ololihii koowaad ku qaadnay inaanu kaliin ka dhigno sababtoo ah waxaad ogtihiin meel aan nadiif ahayn lama qurxin karo lama geeday karo lagama dhigi karo lagama samayn karo xadiiqooyin iyo beero. si aanu taa uga dhammayno waxaanu saakay ololihii koowaad ku qaadnay wadadii quruxda badnayd ee juhdiga badan ay geliyeen dadweynaha reer Buurtinle ee ay dhisteen ee dhex marisay magaalada iyo suuqyada waaweyn ee aad ogtihiin in ay ka fidi karaan xanuunadu. ololahan wuxuu saakay si isku mid ah uga bilowday asagoo aan loo kala harin wadada magaalada dhexdeeda ah oo dhan 3 kiiloomitir iyo 600 min cirif ilaa cirif. sidoo kale wuxuu ka bilowday suuqa kawaanka suuqa ariga suuqa caanaha iyo buundada magaalada dhexdeeda suuqa qudaarta iyo suuqyada yaryar dhamaantood. sidoo kale waxaanu ololaha nadaafadda ka qayb gelinay ama ayaguba ka qayb qaadayay ciidanka saldhigga dhexe oo dhammaan qaybahooda kala duwan ka qayb qaadayay si gaarana aan ugu mahad celinano in ay si gaar isugu xil saareen saakay inuu saldhiggu bilicdiisa la soo laabto insha Allah. waxaanu rabnaa ololahan inaan sii wadno maanta kuma ekaan doono. ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada Buurtinle Sayid Maxamuud Xirsi ayaa sheegay in Buurtinle guul gaartay iskuna tashatay isagoona u mahad celiyay bulshadii ka qayb qaadatay horumarka nadaafadda degmadaasi. Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Buurtinle.